topic وموضوع about كصابسن fornication zinada وموضوع عن أجوهات ليومانتا إن فعل آذي آد لو قلنا عيب كبدين يهي آذي آد أحن الله حقيسة وانا fornication وحلوية قانا والزنada topic موضوع about كصابسن fornication zinada أرضي والبوحان كربا إنه مقالكا وشير قريو دتكا إنه وشير قريسو وحيابها وناكسن markaasi 10 oo ku iman doona insha Allah kan oo kala kamida in dadka looga digo waxyaabo fara badan ay ka dhalan karo zinada anagu waan ognahay in Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu mamnuucayna waan ognahay mowduucan adigu waa ku anfici doona haddaad arday iskuul tahay ama haddaad arday jaamacad tahay hadhow in marka lagu istaajiyo ama si dadka aad u buraarujiso ama dad kale ee luqad kale ku hadla qalaad adigu ugu buraarujiso aad ugu sheegto dhibaatooyinka ay leedahay iyo waxyaabo kale aad ugu sheegaysaa zinadu Qur'aan kana waan ognahay inuu meelo fara badan uu ka mamnuucay marka halkan ay idinku sharxi doonaa ila socda bilow ilaa iyo dhamaadba ha ka tagin hadii adigu aad doonayso inaad wax badan aad ka barato waxa loo yaqaano zinada topic mowduuc about ku saabsan fornication zinada today maanta macnaha qofa wuxuu soo istaagay on the stage and masraxa ayuu soo istaagay wuxuu yiri marka today maanta I want to suggest here waxaan rabaa halkan inaan ku soo jeediyo waxaan doonayaa to suggest here inaan halkan ka soo jeediyo one of mid ka mid ah the most dangerous waxa ugu halista badan and hateful oo loogu naceebka badan yahay niya Allah xaqiisa I want waxaan rabaa to suggest here inaan halkan ku soo gudbiyo one of mid ka mid ah the most dangerous waxyaabaha ugu halista badan and hateful oo loogu naceebka badan yahay hateful waa maxay loogu naceebka badan yahay waa niya Allah agtiisa aad loogu naceebka badan yahay that is taasoo ah fornication zinada oo ah zinada It is an immense honor for me sharaf gaar ah ayay ii tahay sharaf weyn oo gaar ah bay ii tahay aniga It is an immense honor for me sharaf weyn oo gaar ah ayay ii tahay buu yiri to express inaan ku muujiyo my sentiments kalimadahayga towards ee ku wajahan fornication zinada soo sidaa darteed hack me well si fiican ii dhageysta haddaan ku celiyo hal mar halkan it is an immense honor for me sharaf weyn oo gaar ah ayay ii tahay to express inaan ku muujiyo my sentiments kalimadahayga towards ee ku wajahan oon ugu hadlayo fornication zinada soo sidaa darteed hack me well si fiican ii dhageysta as we now ayuu yiri sidaan ognahay as we now sida aan ognahay on kabar qabno Allah prohibited alle wuxuu mamnuucay Allah prohibited Ilaahay wuxuu mamnuucay oo uu xaaraantinimeeyay many things waxyaabo badan like waxyaabahaas waxaa kamida aflagaadada backbiting hanta lying beenta fornication zinada and many others iyo waxyaabo kale badan as we now sida aanu ognahay oonu kabar qabnoon kabar hayno Allah prohibited Ilaahay wuxuu mamnuucay oo uu xaaraantinimeeyay many things waxyaabo badan like waxa kamida waxyaabaha uu Allah mamnuucay slander oo ah aflagaadada backbiting hanta kamida lying beenta kamida fornication zinada kamida and many others iyo waxyaabo kale badan ayuu Allah mamnuucay maxaa yeelay slander ayda ama aflagaadadu waa xaraam backbiting kamida hantu waa xaraam sida Ilaahay Qur'aankiisa uu ku sheegay wala yaghtab ba'dukum oo ay ahayd wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da oo qaarkiina qaarka kale yuusan xaman ayuhibbu ahadukum
أحدكين ميو جعليهي أن يأكل إنو عنو لحم أخيه ميتا ولكيسو ميدا هلب كيس إنو عنو ميو جعلي أحدكين ومي marka taa weeyaan backbiting weeyaan hantu Allah wuu mamnuucay oo wuu xaarantinimay lying akamida beenta kamida oo marka aayatul munaafiq markuu nabigu tilmaamayay calaamadaha munaafiq lagu yaqaan muxuu ahaa wayda kadaba hadath soma wayda hadatha akdab oo markuu isagu sheekeenayo oo kale waxyaabo wuxuu ka sheekeeyaa oo been marka beenta Ilaahay waa mamnuucay calaamatul munaafiq kamida iyaduna fornication kamida zinadu إلهي وممنوعي أوكي ديوان كشيء دون آياداس and many others iyo waxyaabo kala badan but laakiin se fornication zinadu seems waxay u egtaa to ama waxay u muuqataaba to be inay tahay the most hateful things waxyaabaha aadka loogu necebka badan yahay ni Allah Ilaahay xaqiisa soo sidaa darteed what is fornication horta maxay tahay fornication zina maxay tahay inaan isla garanaa ka horeyse Fornication zinadu is an illegal intercourse waa galmo sharci dara ayuu yiri fornication zinadu hadii aan qeexno is an illegal intercourse waa galmo sharci dara between taasoo u dhaxaysa oo dhaxmarta two unmarried persons laba shakhsi oo aan isguursan two unmarried persons laba qofood oo aan isguursan laba qofood oo wiil iyo gabadh aan isguursano isqabin oon qabiltu isdihin oon la kala ogeyn ay in meel isku balansadaan ay tagaan ayay waxa sameeyaan oo zinadaas lagu magacaaba according to markii loo eego Qur'aan verses aayadaha Qur'aanka markii loo fiiriyana Allah prohibited Ilaahay wuxuu mamnuucay this action ficilkan xun Ilaahay waa mamnuucay when you read markaad akhriso the ayada in surah Israel ku jirta suratu Israel ku jirto suratu Israel oo subhanalladhi asra marka akhriso even hita Allah has prohibited Ilaahay wuxuu basii mamnuucay Allah has prohibited Ilaahay wuxuu basii mamnuucay coming near to it in loo dhawaada in la sameeyo iska dhaafe coming near to it in loo dhawaada ayuu mamnuucay zinadu فان آيات واته ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا سمعين زنا ذو هؤلاء وانينا محايا لي وضع الله مرة تنقحن أي أهاتي أوكي واتا مركا إن لو دوادو أيو الله سبحانه وتعالى وديلي وحلو يقانو زنا ذو fornication زنا ذو marka cases waa maxay waxay sababtaa poverty sabooltinimo qofka inuu sabooltinimadiis ay joogto ahaato oo waligiib aan ka bixinba poverty waa sabooltinimo wax kasta uu sameeyana inuu abaar ama marka faqiirtinimo uusan ka bixin sickness kamida oo xanuuno inay ku dhacaan like waxa kamida HIV and AIDS oo kale inuu qofka qaado iyo xanuuno kale oo sababa marka sickness xanuuno non longevity oo cimri gaabadna inuu ku dhaco non longevity cimri gaabad ayaa ku dhacaya qofka oo cimrigiisa on la soo dedejiyo oo geerida loo soo dedejiyo and other contagious disease iyo cudurro kale oo faafa and other contagious disease iyo cudurro kale oo faafa contagious waa faafa disease kuna waa cudur and other contagious disease iyo cudurro kale oo faafa ay sababtaa Allah will banish Ilaahay wuxuu ciqaabi doonaa the fornication doers zina sameeyayaasha Allah will banish Ilaahay wuxuu ciqaabi doonaa the fornication doers kuwa sameeya zinada in the hell ayuu ku ciqaabi doonaa naarta in the hell cadaabka ama naarta ayuu ku ciqaabi doonaa and Allah will reward Ilaahay wuxuu abaalmarin doonaa and Allah will reward Ilaahay wuxuu abaalmarin doonaa those kuwa who do sameeyay goodies oo acmaal wanaagsan ayuu ku abaalmarin doonaa Ilaahay in the paradise jannada ayuu ku abaalmarin doonaa kuwaasna so sidaa darteed we must avoid wa inaan ka fogaanaa this bad habit dhaqankan xun as to reach sa u gaarno progress horumar here and here after
adduun iyo aakhiro here and hereafter adduun iyo aakhiro my dear listeners ayuu ku soo koobay ardaygii wuxuu yiri my dear listeners dhageystayaashayda qaaliga badnow I love you very much aad baan idin jeclahay buu yiri aniguna halkaas aan idinku soo koobaya mowduucan oo aan u qaatay inuu aad iyo aad marka muhiim oo idinku yahay dad fara badan muhiim u yahay inaad si share gareysaan baan idinkaga codsanaynaa insha Allah aad ku soo biirto kulmiye private school si aad ku hesho casharo badan oo kuwa ka qiimo badan hadduu eebe qadaro inaan isku soo gudbino waxyaabo faa'iido leh ayaan mar walba idin soo diyaarin doonaa subscribe ta kala gudbin hada like saartana waa inoo muhiim oo waad inar si qaadi kartaayo saaxiibkayga noogu dhow baad noqon doontaa insha Allah haddii aad u sii share gareyso ardayda ama garuubiyo adigu aad haysanaad ku dirto ku share gareysana waa wax aan la soo koobi karin oo ajirkaaga kaaga baxayo maadaama aad ku soo xirayso dadka waxyaabo muhiim u yihiin intay ku mashquuli lahaayeen waxyaabo waqti ka lumiya maadaama ognahay waqtiguna shayga ugu qaalisan ee Ilaahay uu siiyay bani aadam inuu yahay waa maasantiin